ka hor intaan lagu kulmin finalka maalintaas oo warbaahintu ay u furan tahay in ay galaan garoomada waxay akideen in hawsha ay sugayso Real Madrid aanay hawl yar ahayn taasoo ay la kulmi doonaan Liverpool naadi yar aanu ahayn wariyahayga Jamaal Jito ayaa nagu soo warramay Kiev iyo tababarka iyo diyaargarowga Real Madrid maanta albaabadu way u furan yihiin wasaaisha iclaamiga ah ee warbaahinta taasoo ciyaartooyada dhan la wareysan doono oo ay warbaahintu ay wareysan karayso beIN Sports ay ka mid tahay halkaasina waa ka garoonka lagu tababarayo sawirka aan ka qaadnay ciyaartooyada tababarkoodii garoonkaasi aan cid kale gelin aan Real Madrid aan ahayn tababarka maanta ay qaadanayaan tababar caadi ah maaha sababtoo tahay warbaahinta ayaa lasoo horfarsanayaa taasaa dheer halkaasoo Zinedine Zidane soo fadhiisanayo oo ka fadhiisanayo 150 warbaahin oo adduunka kala socda kuwaasoo ay ka hortagi doonaan naadiga Liverpool iyo ay su'aalo ka weydiinayaan dhanka ciyaartooyada markaan eegno Isco wuxuu ka yidhi anagu diyaar baan u nahay xaalad wanaagsan oo ku sugannahay waana rajaynaynaa inuu ku guuleysano koobka saddexaad aad baan u soo dadaalnay sanadna baan sugaynay san koobka aan la helno haddana finalkii baan taagannahay waxaan rajaynaynaa inuu ku guuleysano guul kale laakiin hawsheeda ay leedahay iyo naadiga aadka u weyn soo bandhigay ciyaaro wanaagsan liiga hadday noqoto iyo haddii champion noqotaba ayaan sugayaa tababarnimada imka furan ee warbaahinta u furan talow soo bandhigayaan ciyaartooyada ka qayb gali doono Zinedine Zidane ciyaarta finalka ma yaba ila tahay mid kaliya unbuu warka ka cadiyay Zidane oo Casemiro ah oo 2 sano ka hor ayuu Zidane dhaawac soo gaaray Casemiro oo ka yidhi ninka Casemiro bedelkiisa ma hayo saad daraadeed inta kale waan heli karayaa Casemiro laakiin wax bedelaan u haya ma jirto oo isaga ciyaarta ayuu laacibka ugu asaasiga uu doonayo inuu markaa uu soo geliyo ama line up ahaado uu Casemiro u yahay haddii ay saa tahay tababaruhu uu saayidi oo aad buu ugu mahadsan yahay waayo waa Zidane sidiisaba tababaro kaliya imaha aniguna waan garanayaa shaqadayda waan caawinayaa asxaabtayda isku tiimka nahay balance inaan siiyo markaa tiimka oo miisaamoon hore wado ayuu waajibkaygu yahay laakiin ma idinla tahay hadduu Real Madrid ku guuleysan waayo koobkaas xilli ciyaareedka sanadkan oo guul darro fara badan soo xareeyay in sanadkaas khasaaraha badan uu ka gaari doono koobkaas maalinta Sabtida dhici doona hawaan ororkeena saade waa khasaaro weyn soo gaaraya mar walba laakiin waxaan filayaa inaan ku guuleysan doono insha Allah